sanadka markuu ahaa 550kii intuusan dhalan nabiciisa ka hor waxaa soo baxay magaciisa lahay korashkii weynaa kaasoo noqon doono ninkii aas-aasi doono boqortooyo magaceeda lahayo boqortooyadii Khomeiniyiinta ee dalka Iran wuxuu noqon doonaa ninkii oo xuray doono oo sii doono xorriyadooda Yahuudi oo soo qafaashay Bakhtansar ninka marka lahay Koresh waa ninka burburiyay boqortooyadii oo Baabiliinta ee dalka Ciraaq ka jirtay Koresh al-Kabiir kaasoo ah ninkii aas-aasay imbaraatoriyadii weyneed oo weynta ahayd ilaah weyn waaxid ah oo ka jirtay dalka Iran oo magaceeda lahayo Khomeini mise Akhmeniya taasoo noqon doonto imbaraatoriyad weyn oo ballaaran oo noqotay boqortooyadii burburisay imbaraatoriyada ka horeysay magaceeda lahayo Babel tii oo hogaaminaya Bakhtansar sanadkaasna waxaa soo baxday boqortooyo cusub magaceeda lahayo Hamajada oo ka dhalatay dalka Hindiya oo ahayd boqortooyo sixir iyo alaabtoodii sanadka markuu ahaa 512kii waxaa soo baxay magaciisa lahayo Darius oo ahaa boqor kamid ah boqortooyadii oo Khomeiniyiinta Iraniyiinta kaasoo oo ballaarisay xukunkooda macaan dhulkii ballaariyay wuxuu gaarsiiyay ilaa Yurub ilaa iyo Afrika Masar ilaa wuxuu qabsaday adduunka inuu qabsaday wuxuuna qabsaday dhul kamid ah dhulalkii mataqaana oo ay gumeysanaysay boqortooyadii Greega sanadka markuu ahaa 509kii intuusan nabiciisa ka horne waxaa la dilay boqorkii ugu horeeyay oo Roomaanka markaas waxay noqotay iska bedeshay from boqortooyo waxay noqotay to jamhuuriyad boqortooyada Iran waxay isku dayeysay inay ballaarsato boqortooyadeeda ee soo gasho ilaa iyo Yurubtani meesha ka talinaysay Greega balse shacabkii Greegi ayaa iska caabshay iska dhiciyay way guuldareysatay Iraniyiintii halkaas lagu qabtay sanadka markuu ahaa 490kii intoos dhan nabiciisa ka hor taasa markii waxay noqotay in oo mataqaanayo ay joojiyaan sakashadii ay ku soo sakanaysay Iran yarabta inay ku qabsato ilaa qaaradda Yurub marka halkaasna waxaa bilaabatay casrigii ugu wanaagsanaa oo soo maro Greega halkaasna waxaa loo yaqaanaa casrigii oo classicada ahaa mise the classic age mise the classic era mise al-casr al-classiki waana 490kii intuusan dhalan nabiciisa xilligaasna waxaa adduunka aad u qabsatay oo ku faaftay xadaarad cusub wallahi xadaaradii Greega taasoo marka ay soo bixin rag badan oo falaasufo oo dhashay dalka Greeg iyo culimadooda sida ninkii lahaa Aflatoni Aristo iyo Socrates xilligooda ahayd taasna waxay ahayd kaliya waqti yar oo kooban marka waxaa dhacday Greeg dhexdooda inay isku dhacaan laba kala baxaan waxa la lahayo Athens iyo mid la lahayo Spartak marka labadooda isku dhacay way kala jabeen dagaalo waxa soo galay meeshaasi dagaalo sokaya soo galay taasa marka waxay keentay in uu ka faa'iideysto nin daris la ahaa boqortooyo waxa jirta ayaga mataqaanayo oo isku mid ahaayeen walaalahooda ah oo daris leeyahay magaceeda lahayo Macedonia taasa ka faa'iideystay nin magaciisa lahayo Philip kaasa marka muxuu sameeyay wuu soo weeraray wuxuu qabsaday boqortooyadii Greega ninkaasa burburiyay ninkaasa qabsaday marka wuxuu noqday nin oo qabsaday oo ka taliyo dhulka ka talinayeen Greega markay u socotayna sanadka markuu ahaa 330kii Philip oo dhintay balse yaa qabsaday xukunka waxa qabsaday nin caan ah oo adduunkana qabsan doono oo magaciisa lahayo Alexanderkii weynaa mise ilaah weyn waaxid nin magaciisa lahayo the great Alexander ayaa qabsaday mise Alexander al-Akbar ilaahu akbar waaxid kaasa qabsaday kaasa markuu wuxuu noqday nin oo burburiyo boqortooyadii Khomeiniyiinta mise boqortooyadii Iraniyiinta oo ahayd quwadda kaliya adduunka markaas haysatay boqortooyadii Iraniyiinta burburiyay markaas waxay noqotay in tusbax oo kale adduunka ugu furmo adduunka daafis inuu qabsaday sharqan iyo qarban Afrika ilaa Yurub ilaa Asia meesha ugu fog ayuu qabsaday laakiin se u socotay waxaa dhacday sanadka markuu ahaa 323dii intuusan dhal nabiciisa ka hor ninka lahaayay Alexander inuu dhinto ilmana kamuusan tagin wiil yar oo ahaa wuu dhintay markuu dhintay ayaa waxay noqotay in boqortooyadiisa la kala qaybsado dhulka asiga oo haystay oo ka talinaya dhan oo saas u ballaarnaa in ay kala qaybsadaan 3 nin oo ahaa 3 nin asiga oo u ahaa hogaamiyaashiisa mas'uuliyiinta ka mid ahaa kuwaas ayaa qabsaday adduunka xilligaas waxaa loo yaqaanaa xilligii oo Hellenistic macnaha xilligii oo yaabka badnaa markaasna waxay noqotay in xadaarada Greega ay ku faafto daafaha dunida adduunka dhan ay noqoto dad u dhaqmo masqaato xadaaradii dhaqankii Greega markaas jiray waayo adduunka markaas waxaa socotay kaliya ilmaxnimadii Greega markaas u socotay qaaradda Afrika waxaa soo baxday boqortooyo cusub magaceeda lahayo Mauritania oo ka dhisantay dhulka hadda u naqaano Morocco ninka ugu horeeyay meeshaas ka talinay magaciisa waxa lahaayay Bac